kulantiisan saaxiibayaal meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idil ahaantiina waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida channelkeen. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah kooxda TPLF oo shaacisay inay sii deyn doonaan maxaabiis Soomaali ah oo qayb ka ahaa askar tababar lagu geeyay dalka Eritrea. Xog la xiriirta ayaan idin soo gudbin doonaa. Ra'iisul Wasaare Roble oo ka qayb galay shirka golaha wasiirada maamulka Jubbaland iyo fariin adag oo u diray xubnaha wasiirada maamulkaasi. la taliyaha dhinaca arrimaha doorashooyinka madaxweyne Farmaajo Cabdiraage oo laga soo celiyay magaalada Kismaayo ee sababta uu shaaciyay Cali Goodlaawe uu soo gabagabeeyay socdaalkiisii Turkiga dibna ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. xog la xiriirta ayaan idin soo gudbin doonaa. qodobada wixii kaloo dheeriya ee nagu soo kordhay intaanu ku guda jirno tabinteena tooska wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida channelka ka bogan doontaan. haddii aad nagu cusub tihiin saaxiibada qiimaha badan waxaynu idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe-ka noo saartaan channelkeena si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada sida joogtadana halkan aynu ugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee xogaha wararkeena. daawada qodob walba oo warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa oo waxa aynu ka codsanaynaa inaad muuqaalkan la wadaagto saaxiibadaada. hagaag aynu ku bilaawno. kooxda TPLF ee ka dagaalanta gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia ayaa markii ugu horeysay waxa ay shaaca ka qaadeen inay sii deyn doonaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa dagaalkii ka dhacay gobolkaasi. kooxdan ayaa afayeen u hadlay waxa uu shaaciyay in dhalinyaro ka mid ahaa kuwa Soomaalida ah ee tababarka ugu jooga dalka Eritrea si qaldan dagaalkaasi loogu adeegsaday. waxa uu sheegay afayeenkan uu hoosta ka xariiqay in qaarkood dhalinyaradaasi ay gacanta ku soo dhigeen iyaga oo aan dagaalamaynin isla markaana ay soo dhiibeen sidaa daraadeedna dalkooda hooyo ee Soomaaliya dib loogu soo celin doono. afayeenkan ma uusan xusin tirada ciidamada Soomaalida ah ee dagaalka ka qayb qaatay ee maxbuus ahaan ay u haystaan kooxda TPLF, balse waxa uu shaaca uu ka qaaday in ay dalkooda dib ugu celin doonaan iyadoo oo la kaashanaya sidoo hadalka uu u dhigay afayeenkan dowladda federaalka oo xiriiro kala duwan la sameyn doonaan. kooxda TPLF ayaa waxa ay sidoo kale ay soo bandhigtay maxaabiis fara badan oo Ethiopian ah kuwaas oo qayb ka ahaa ciidamada dowladda federaalka dalka Ethiopia ee dagaalka kooxda TPLF kula galay waqooyiga dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray. TPLF waxa ay hoosta ka xariiqday in mar kale aysan u dulqaadan doonin in askar ka socota dowladda shisheeye loo adeegsado dagaalka gobolkaasi. waxaynu ku hanjabtay in tallaabo adag ay qaadi doonaan, balse askarta qaarkood ayay sheegeen oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida inay cafis u fidiyaan kadib markii si qaldan loo isticmaalay awoodooda ciidan. hadalkan ka soo baxay kooxda TPLF waxay ku soo aadaysaa xilli dhawaan dowladda Mareykanka ay shaacisay in askar Soomaali ah oo tababar u jooga dalka Eritrea ay qayb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay ee waqooyiga dalka Ethiopia. waxaana sidoo kale arrintan ay daba socotaa baaqii golaha ammaanka ee la xiriiray inay qayb ka ahaayeen askar Soomaali ah ee dagaalkii ka dhacay Tigray. inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya ay si adag u difirtay waxa ka jira in askar Soomaali ay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray, balse dowladda ayaa shaacisay in dalkooda hooyo dib loogu soo celin doono askartaas oo uu tababar uga socdo mid ka mid ah xeryaha ciidan ee ku yaala dalka Eritrea. waalidiin fara badan ayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo gobolada kale ee dalka waxa ay ka dhigeen dibadbaxyo ay baaq ugu jeedinayeen dowladda dhexe Soomaaliya oo ay ka codsanayeen in dowladdu ay cadeyso halka ay ku dambeeyaan caruurtooda oo qaarkood war iyo wacaalba ugu dambeysay 2 sano ka hor oo aysan ogeen inaysan qayb ka ahayn. xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dibadda keenay jiritaanka warkan ee la xiriira in dagaalkii ka dhacay waqooyiga dalka Ethiopia loo adeegsaday askar Soomaaliya. hase ahaatee waxaa maalmaha soo socda kala cadaan doona xaqiiqda dhabta ah iyo weliba waxa ka jira in askar Soomaali ay ka qayb qaateen dagaalkaasi. dowladdu waxay shaacisay in dalkooda dib loogu soo celin doono askartaasi, halka kooxda TPLF war ka soo baxay maantana ay ku shaacisay in askarta ay dagaalka ku qabteen ay Soomaalida dalkooda dib ugu soo celin doonaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo socdaal booqasho ku jooga magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland ayaa maanta waxa uu ka qayb galay kulanka golaha wasiirada maamulkaasi. kulankan uu shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen oo ay ka qayb galeen
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xubnaha golihiisa wasiirada ee ku wehelinaya socdaalkiisa Jubbaland ayaa waxaa warbixin guud looga dhageystay xubnaha golaha wasiirada maamulka Jubbaland. sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi waxa uu la wadaagay warbixinada la xiriirta xaaladda siyaasadeed ee dalka, dadaalada ay xukuumaddiisa ugu jirto hirgelinta doorasho ku saleysan wadar ogol, iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee golaha wasiirada maamulkaas looga baahan yahay inay hirgeliyaan. Rooble ayaa xubnaha golaha wasiirada Jubbaland ku bogaadiyay doorkooda wax ku oolka ah ee ay ka qaadanayaan horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee deegaanada maamulka Jubbaland. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa maanta dhagax dhigay dhismo lagu sameyn doono dekedda magaaladaasi oo uu sheegay inay muhiim tahay in dib u dayactir ballaaran ay hesho dekedda weyn ee magaalada Kismaayo. dhinaca kalena la taliyaha dhinaca arrimaha doorashooyinka madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo cabdiraage ayaa waxaa wararku oo ay sheegayaan in laga soo celiyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee caasimadda dowlad goboleedka Jubbaland ee ku meel gaarka ah. waxaa diyaarad qaas ah oo Muqdisho ka qaatay Cabdi Cali Raage oo ah la taliyaha dhinaca arrimaha doorashooyinka madaxweyne farmaajo loo diiday inay caga dhigato garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee magaalada Kismaayo. la taliya Cabdi Raage ayaa door muhiim ah ku lahaa dagaalkii adkaa ee Jubbaland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoo sanad ka hor madaxweyne farmaajo uu magacaabay la taliyaha dhinaca arrimaha doorashooyinka Jubbaland. ayaa tallaabada magacaabista la taliyaha dhinaca arrimaha doorashooyinka madaxweyne farmaajo ka careysiisay, waxaana go-aan ay soo saareen gebi ahaanba looga mamnuucay deegaanada Jubbaland inuu yimaado Cabdi Cali Raage. Cabdi Cali Raage ayaa la sheegay in qorshe la xiriira arrimaha doorashooyinka uu ugu wajahnaa halkaas maadaama uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen rooble. Cabdi Cali Raage ayaa waxaa dib magaalada Muqdisho ugu soo celisay diyaaradii sida ee kol hore ka qaaday caasimada dalka, waxaana bahda warfidiyeenka uu kula hadlay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho isagoona shaaciyay in tallaabada ay qaadeen hogaanka maamulka Jubbaland ee looga diiday in uu caga dhigto magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka u ah Jubbaland ay tahay mid ayaan darah. waxa uu ku tilmaamay in arrintan ay ahayd wax qaldan oo aan wanaagsaneyn. waxa uu sheegay Cabdi Raage in maamulka Jubbaland xubnaha ugu sareeya uu ka codsanayo ama uu ka dhowr sugayo in la cadeeyo sababta keentay in isaga loo diido inuu tago deegaanada maamulka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland. Cabdi Raage ayaa hoosta ka xariiqay in hogaanka Jubbaland ay muujiyeen daciifnimo oo uu tilmaamay inaysan ka fikiraynin danta guud, oo uu sheegay inay muhiim tahay in deegaanada maamulka Jubbaland dadka ku nool ay helaan xaqooda dastuuriga ah. saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida channel-keena inta aad ku mahadsantiin daawashada warkan midkiisa xigeentii dib u kulmi doono nabadiino.